dadka la raba inay ka hadlaan wax ku darsadaan dastuur hadduu jiro maxkamada hadday shaqaynayaan ay ku yeeshaan fikir ka yeeshaan xisbigu waa dawlad oo kale waay ma ahan maaragtay niman fadhi ku dirro iyo gabdho meel iska fadhiya marka waa dawlad socota oo fiildi kastoo dawladnimada ku saabsan la raba inuu aragti ka yeesho shaqada ka socotana wax ka ogaado si loo saxo xisbigu ama mar xukunku tagaya ama banaanku joogaya markuu gudaha joogana waxa la rabaa shaqadii la rabay inuu qabto iyo oo u degsaneed markuu banaanka joogana midda socota inuu saxo contribution ku yeesho marka waa mahadsantahay waxaan u yeerayaa maxamed ismaaciil أنا waxaan xogaa iskaaliyar ku arkay qodobka 7-aad oo ka hadlaya xulidda iyo ansixinta xubnaha golaha dhexe qodobkiisa 3aad oo ah haddii shirweynuhu wada diido dhammaan xubnaha la soo xulay ama qaar ka mid ah waxaa lagu laabanayaa xulashadii hadba tirada la diiday ilaa iyo inta laga buuxinayo tirada xubnaha golaha dhexe shirweynuhuna ka wada ansixinayo marka iskaaliyadu waxay igala taagan tahay aniga oo aan rabo in mataqaanaa nalaga jaahil bixiyo haddii ay wada ansixiyaan dhammaan ama qaar ka mid a marka waxay kula habboon tahay in tiro la sheego oo mataqaanaa la yidhahdo hadda sida golaha dhexe oo kale tiro 3 meelood 2 meel ama tiro 3 meelood 1 meel shirweynaha in laga dhigo sababtoo ah ma cadda qaar ka mid a haddii ay laba ay diidaan macnaheeda waxaa waaye ma lagu laabanayaa meeshaas ka imaanayso marka haddii ay wada ansixiyaan waa la garta laakiin qaar ka mid a haddii diidaan meeshaas xogaa la fiiriyo badnaa aan waday ustaad mahad iyo ustaad haruun ayaa ka hadlay waxaa soo jeedina aniga maadaama ujeedadu tahay comment in la dhiibto qodobka 68aad arrimaha guud farqadiisa 2aad la midoobidda xisbi kale waxaa meesha lagu soo qoray haddii lala midoobayo ku lumaayo qaab dhismeedka iyo muuqaalka xisbiga waxaa soo jeedinayo golaha fulinta 3 meelood 2 meel waxaa ansixinayo golaha dhexe 3 meelood 2 meel meesha ayaa lagu ekeeyey waxaa u malaysaa marka haddii xisbi kale lagu miiraayo waxaa isbedelaya mabaadi'da iyo qaab dhismeedka meesha lagu sheegay haddii golo dhexena lasoo doorto waxaa ansixinaya shirweynaha qaranka shirweynaha ee xisbiga maxaa loogu waayay in lagu daro qodobka in la gaarsiiyo la adkeeyo in shirweynahan uu ansixiyo in xisbi kale lagu biiro meesha saar haddii sharaxaad jirtana la sharaxo qodob waxaa ka dhawaajiyey xildhibaan hore maadaama aan dhallinyaro ahay waxaa waaye concernka ugu weyn aan qabo dhallinyaro ahayd laakiin waa laga dhawaajiyey qodobkaas already inuu qoran yahay u malaynaa qodobka kale oo iyadana aan xogaha rabin oo la fiiriyo waxaa ka mid ah qodobka 33aad farqadiisa 2aad iyo 3aad oo ah shuruudaha oo lagu xulanayo golaha dhexe ee xisbiga marka golaha dhexe ee xisbiga micnaheedu waxaa waaye waa golihii baarlamaanka xisbiga oo waxaan ansixin lahaa shuruudo ka doodi lahaa waxyaabaha fulinta ay soo gudbiyaan ka hadli lahaa marka therefore meeshaasi farqada 2aad da'da aad u yaraysay 18 wax ka weyn aad tiraadeen waxaan jeclaan lahaa 25 wixii ka weyn in la yiraahdo oo qof experience leh oo wax bartay inuu meel noqdo macnaha farqada 3aadna waxaa ku qorteen inuu haysto shahaado dugsi sare iyadana halkaas inaad dhehdaan shahaado jaamici inaad tiraadaan oo xisbiga maadaama golaha dhexe uu matalayo aad ma santahay inta ayaa laba su'aalan qabaa qodobka 4aad waxaa la yiri mataqaana 4 gudoomiye ku xigeen oyaal marka xogayaha arrimaha dibadda anigu maana maqlin maana arkin hadduu ku jiro waa guud hadduu isku jirina why not hadduu ku jiro waa khayr su'aasha labaad waxaa waaye xogayaha cadaaladda muxuu qabanayaa maadaama aanan maxkamada lahayn xisbigu maxkamada buu leeyahay maasanta dhammaan marti sharaf halkaas ugu timid xildhibaanada qiimaha badan dumarka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada aan isku age-ka nahay waxaan rabaa inaan su'aasheeda dhiibto anigoo matalaya dumarka Soomaaliyeed qaar xildhibaanay halka fadhida iga khibrad badan laakiin waxaan jeclahay inaan magacooda muujiyo su'aasheedu waxa waaye cutubka 2aad ee ka hadlayay lacagta gunada ee la iska qaaday qofka markuu xisbiga ku soo biiraayo intay tahay laguma xusin dastuurka dhexdiisa tan xigta waxa waaye xulidda golaha dhexe ee 75 ee dhalinyarada yaa xulanayo aad ba u mahadsantiin waana ka xumahay inaan hadalka leeyahay gargariiro
cutubka saddexaad qodobka 22aad qaab dhismeedka xisbiga ana xisbiga wuxuu yeelanayaa dhowr hay-adood A E B C D waxaa qoran shirweynaha xisbiga waa hay-ad ugu sareysa xisbiga dhismaha xisbiga marka booska qaab dhismeedka shirweynaha waxaan qabaa magacaas in lagu bedelo golaha guud ee xisbiga si ay isku raacaan golaha guud golaha dhexe golaha fulinta iyo golayaasha kale marka meesha shirweynaha xisbiga waxay ka tarjumaysaa dhammaan waxaa isku imaan doonaa xubnaha xisbiga shirweynaha booskaas shirweynaha marka waxaan qabaa aniga in lagu bedelo golaha guud xisbiga lagu bedelo si golayaasha magaca golayaasha isku raacaan qaabkaas ay lagu raacaan gudoomiyaalkii xisbiyada gudoomiyihii hore ee xisbiga daljir iyo gudoomiyihii hore xisbiga PDB iyo kutulada hore socod si wanaagsan oo dimuqraadi ayay xilka u wareejiyeen inta ka bacdi waxaan kaloo salaamaanayaan iloobin gudoomiyaha ku meel gaarka ee xisbiga asna waa salaama iyo dhammaan dhalinyarada ka soo qayb galayaalka inta ka bacdi aniga wax badan ma qabo laba concern aan qabaa mid waxa waaye qodobka 44aad shuruudaha gudoomiyaha xisbiga waxaan qabaa waxaa meesha lagu sheegay da'da gudoomiyaha xisbigu in aysan ka yareen 40 sida inta laga sheegana statistics aan ku hayno dalka boqolkiiba 70 waxa uu qiyaasaa dhalinyaro 75 waxa la yiraahdaa waxay ka yariin 30 marka maadaama tayo iyo aqoon iyo meerid la raadinayo in la yiraahdo gudoomiyaha xisbiga 40 sano iyo iska yaraan aniga meesha waxaan qabaa inay far ku godan tahay oo la yiraahdo 35 iyo 30 ilaa markaas yahay xad loo yeelo waa caadi saasaan qabaa taas in da'daas waliba waxa kale oo ku sii dara maadaama gudoomiyaha xisbiga intaan oo dhan uu yahay saddex xisbi isku tagay qualification xogaa in kor loo qaado oo ilaa heer master ilaa PhD la gaarsiiyo waa qabaa concern labaad aan qabo waxa waaye saad u jeedaan halkan magaca xisbiga waa xisbiga midowga nabadda iyo dimuqraadiyadda ogtihiin meeshaan waxa ku qoran midowga bas waxaan rabnaa meeshaan in la kala qaado xisbi iyo urur magacayna inta lagu soo diro oo la yiraahdo xisbiga midowga nabadda iyo dimuqraadiyadda markaas waxa xataa isbedeli doona abbreviationka ama markii la soo gaabiyo waxa hadda UPD waxaan qabaa marka taasna in ayadan wax laga bedelo aad iyo aad u mahadsantiin waqti ay ka dhacay oo mahadsantiin aan qoray qaar kamid ah waa laga dhawaajiyay intii kaalinta dhalinyarada muujisa waa ugu mahad celinayaa meelaha qaar sida xilalka kale in aad loo badiyay qodobka 4aad wuxuu ka hadlayaa xilalka golaha fulinta waxa la sheegay in 4 gudoomiye ku xigeen uu yeelanayo marka xilalkaas tirada badan hadda aan ka aragnay isqabsi badan inay keento maxaa lagu saleeyay in 4 gudoomiye ku xigeen la sameeyo waa mid koowaad midda labaad markii xilalka golaha fulinta laga hadlaayo waxaa laba xil oo u malaysid inay xogayaha maaliyadda iyo xogayaha dhaqaalaha ayaa lagu soo daray oo aan isdhahay labadooda waa isku mid ama waxay keeni doonaan in la isku qabsado awooddaas anaa iskale in meesha laga saaro qodobka 33aad oo ah xubnaha golaha dhex soo galaya oo la xulay oo la shuruudaha waxaa ka mid ah da'dooda inaysan ahaan ka yaraan 18 sano iyo dugsi sare xogaa in meesha kor looga qaado sida tiim kale aan la qabaa ayagana muddaxileedka gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiyaha golaha dhexe 4 sano horta yaa noo yeeri anaga ma kitaab quraan ay ku qoran tahay mase horaa loo soo yeeri ma 5 laga dhigo ma 10 laga dhigo 4 sano kasta in mataqaanaa wajic cusub la keenay laftigeeda waxay noqotay caqabad waajibaadka gudoomiyaha xisbiga waxa u maleynaa aad u badan yihiin dhowr iyo 10 xabaa qoran xogayaha guudna waxaa laga dhigay qof oo secretary u ah gudoomiyaha inuu soo diyaariyo kulamada shirarka inuu warbixinada qaybiyo labadaasna waxaan rabaa in ayagana ballacdayo aad u maasantiin Allah waxaan qabaa dhowr comment ko mabaadi'da xisbiga waxa aan qabaa aad arrin muhiim ah ayaa ka maqan oo ka hadlaysa inclusivity-ga ama in xisbigan uu ka shaqaynayo mabda'an ay u tahay in Soomaalida oo dhan ay u wada dhan tahay marka mabda'aas in lagu faahfaahiyo si fiican loo qoro ayaan qabaa oo mabaadi'da lagu daro maaragtay xisbiga number 2 waxaan aad ugu faraxsanahay in maaragtay xisbiga uu dastuurkiisa ku darsaday in boqolkiiba 30 haweenka Soomaaliyeed ay si fiican loogu cadeeyo arrintaas waan bogaadinaynaa
gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilashoodaba way soo dhaweynayaan laakiin waxaan rabaa hal su'aal inaan weydiiyo dadka halkaan fadhiya meeqa qof oo dhalinyarada halkaan fadhida gacanta taaga ما شاء الله aad iyo aad u mahadsantihiin su'aasha aan qabaa marka waxay tahay why not dhalinyarada halkan boqolkiiba 70-90 ku fadhiyaan loogu cadeyn waayay doorkooda waa in dastuurka la yiraahdaa doorka iyo quotada dhalinyarada oo boqolkiiba 70 waliba ka yar ma aqbaleen taasna waa comment-kaas waan qabaa marka saad la yiraahdo macal fiqi iyo odayaasha dhan dhalinyarada nahay bay dhihi rabaan yaa ka yeelay waxa kale oo comment aan ka qabaa qaabka xubnaha golaha dhexe loo soo xulaayo waxoogaa faahfaahin in laga bixiyo qaabkay ku imaanayaan meelaha kala imaanayaan waxoogaa maaragtay in ayadana faahfaahin laga bixiyo ila tahay aad mahadsantii dooranaya golaha dhexe waana madax bannaan yahay leedii marka golaha dhexe kama imaan kare hal la yiraahdo golaha fulinta soo jeediyeen golaha dhexana u codeeyo si uu noqdo mid madax bannaan hana la adkeeyo sababaha oo xilka looga qaadi karo qodobka 39aad ee golaha fulinta waxa dhaadeen waa hay'adda ugu sarreeyda shirweynahana dhinaca kale waxa dhaadeen waa hay'adda ugu sarreeyda labadooduba iswaafajinay idinkaga baahan yihiin shaqada loo kala duwo dabcan hay'adda ugu sarreeyda waa shirweynaha golaha fulintana arrimaha maamulka mas'uulka iyo hay'adda ugu sarreeyda xisbiga ma qodobka 42aad ee doorashada gudoomiyaha waxa dhaadeen waa shirweynaha kaliya dabcan kuma cadda sida lagu codeynayo ma gacantaaga ma cad qarsoodiyaha in la qeexo u baahan yahay midda labaadna maadaama gudoomiye ku meel gaar maanta la dooranayo ayadan in lagu qeexay u baahan tahay oo la sheego si adhoodii aan loo dhigin xagee laga soo geliyo sharciga ugu waafaqsanaad qodobka 48aad kutlooyinka siyaasadeed markii laga hadlayo xilkooda waxaad ku soo koobteen gudoomiye iyo afhayeen baarlamaanku waa ka ballaaran yahay dabcan wuxuu ka kooban yahay dhammaan dowlad goboleedyadii oo dhan xelalku marka intaas waa ka badan yihiin waxaan qabaa inaan sidaas loo soo gaabin ee la yaro waasiciyo si dadku ay ugu helaan representation dhammaystiran qodobka 65aad ku biirista xisbiga soo jeedinta meesha 3 bilood laga leeyahay waxaan qabaa 3 meelood hal meel in la yiraahdo 1/3 oo 3 xubnood laga dhaafo oo representation loo bedelo ayadan aan talahaan ku soo jeedi lahaa qodobka 68aad faqradiisa B dabcan waa saxdeen meeshaan hadda uga jeeda inaad bedesheen qodobka 7aad soo jeedinta golaha dhexe waxay dhaadeen golaha dhexe ayaa wax ka bedeli kara dastuurka shirweynana lagu ansixiyay oo ka awood sareeya marka ani waxaan qabaa golaha dhexe waxay leeyihiin golaha fulinta inay soo jeediyaan third golaha dhexe ay ku ansixiyaan shirweynahana marka third ku ansixiyo oo go'aanka kama dambaysta dastuurka wax looga bedelayo waxaan qabaa maadaama golaha shirweynaha markii hore laga soo ansixiyay shirweynaha in loo refer gareeyo golaha dhexe kaliya aan lagu soo maasantii guddigii gacanta ku hayay oo Dr. Cilmi iyo Xildhibaan Faarax Cabdulqaadir iyo team waxaa jiray dastuurka gacanta ku hayay teamkaas lagu xawilayaa dhammaan commentiskii si ay wixii aan iska hor imaanayn ama meesha si kale wixii loo fahmay waa gaar laakiin commentiska qiimo galka ee la jeediyay in lagu wada daro marxaladii u muhiimsanayd baa marka joognaa hadeertaan dadka dibadda jiro dhan ha noo soo galaan waxaa sidoo kale nagu soo biiri doona madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud ayaa noo imaan doona si uu marqaatil aan ugu wada noqono يعني أنت سو jeediseen runtii aad iyo aad bay tixgelintooda u leeyihiin طبعا muxuu ahaay waxan waa dastuur weeye waxaad arkaysaa dastuurkii markii la sameeyay oo muddo inta leeg laga soo shaqeynay haddana wali qabiyo inoo yahay marka la sameeyo muddo waxay sii ahaanayaan inay moogtay kobcaan oo ay koraan oo ay tajriibada iyo dhaqanka iyo shaqadu ay moogtahay ay wax ku darto kaas uu gelayaa in la naaxiyo oo wanaagsanaado oo markaas sidaan doonayno uu noqdo hadda waa marxaladii koowaad weeye baan taaganahay daraafkii ugu horeeyay qobiy qoraalkiisii ugu horeeyay weeye maanta waxaan ka hadlayno waxaan u baahanahay inaynu moogtay ilaa shirweynaha inta laga gaarayo qobiy qoraal buu ahaanaya maaha intaad hadda soo muxuu tilmaanteen kaliya maaha inta markaad soo akhridaan
si fiican uga baaraan degtaan aad muxuu ahaa ay sheegtaan inta muddada aan ku jirno shirarkeena iyo hawlaheena iyo shaqadeena ku jirno inta aan ogaanay ay tajribadu ina bartaa iyo ku biiraysa marka waxaan qabaa muxuu ahaa qoraaladii iyo commentkii iyo meelihii soo sheegteen oo dhan dhallinyaradeena ay noo qoray waxaa loo sameynayaa sidan qabo muxuu ahaa kulli guddi gacanta ku sii hayn doonta ilaa inta laga gaarayo shirweynaha laga gaari doono inta laga gaarayo oo muxuu ahaa la sii naxnaaxin doono taasaa horta moogtay muhiim inaynu ogaano oo aynu moogtay arrin laga sii shaqaynaya ay noqoto oo aan dhammaanteenba kasii wada shaqayno commentkeena aan kusii darayno meelaha gaarka ah ee muxuu ahaa la tilmaamayna waxaa jira meelo badan oo lagu soo saari doono xeer hoosaad lagu soo saari doono qaabka shaqo ee maamul ee lagu soo saari doono waxaa laga dhawaajiyay arrimaha maaliyadda ama hantidhowrka ha noqoto ama muxuu ahaayey xubinnimada moogtay lacagta la iska qaaday ha noqoto waxyaabahaasoo dhan iyo nidaamka maaliga waxaa lagu soo qori doonaa xeer gaara oo arrimaha maaliyadeed maamula ayaa lagu samayn doonaa hadba inta xubinta iyo kaalinta ay kaga jirta iyo awoodda la bixin kara iyo dhaqaalaheena iyadoo lagu muxuu ahaayey lagu eegayo qodobo badan oo soo jeediyey muxuu xildhibaan mahad iyo xildhibaan xuseen iyo senator xuseen ay soo jeediyeen waa muhiim waxoogaa moogtay waxyaabaha u baahan in sixitaan ama dib loo eego dib loo fiirsho u baahan ayay ka mid tahay xagga la midoobidda muxuu ahaayey xisbi in xisbi kale lala midoobo marka ay midow noqoto oo magacii wax laga bedelayo muuqaalka laga hadlay waxa weeye magacii masalan hadda iminka waxa weeyaan waxa la isku biiray daljir iyo BDB iyo horsocod baa isku biiray daljir iyo BDB xisbiyay ahaayeen marka ay u guurayaan muxuu ahaayey midowga waa inuu go'aan yaa qaadanaya go'aanka masiiriga ah waxa qaadanaya in golaha dhexe iyo shirweynuhu waa 4 sanaba mar aad buuna u culus yahay muxuu ahaayey kulankiisu laakiin baarlamaanka xisbigu waa golaha dhexe weyn marka waxyaabaha siyaasiga ee masiiriga ah waa inay muxuu ahaayey golaha dhexe ay markaasi ay qaataan oo go'aan ka gaaraan 3 meelood 2 meeloodna tiro adag oo culus ay markaasi ay ku ansixiyaan marka hawlahaas oo dhan runtii waa moogtay waxaan malaynayaa waxa moogtahay socodsiinta muxuu ahaayey inay siyaasadii xisbigu sii jirto inuu xibsibto muxuu ahaayey magac kale qaato inuu nidaam kale u wareego marka arrimahaas oo dhan bay noqonaysaa aad baad u mahadsantihiin muxuu ahaayey waana tixgelinteena leenahay comment wanaagsan oo qurux badan xagga dhalinyaradu aad baa moogtay uga dhawaajiyeen dhalinyaradu hadday 75% qaataana waxa weeyaan haddii moogtay ragga anigu aan ku jiro kale waxaan malaynayaa inay dhalinyaradii dhaafay inaan moogtay daada hoos u dhigno weli dhalinyaraanuna marka aan ugu khasbina dhalinyarada lafteeda haddii golihii dhexaa tiraada iminka xitaa moogtay nambarka dib moogtay kora loo qaado oo 25 iyo 30 iyo markaa moogtay laga dhigo oo dhalinyaradu halkaa ay xoog ku yeeshaan muddo 5 sano ah iyo 6 sano ama 10 sano xisbiga markay ka soo shaqeeyaan ay gudoomiye isku sharaxi karaan waxaan u malaynayaa inay arrin wanaagsan tahay marka aad baan idinku mahadcelinayaa waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh